xilli uu dunida si xawli ah ugu faafayo cudurka corona gaar ahaan dalalka Afrika ayaa waxaa socda dadaalo la doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka cudurkan. Dowladda Kenya ayaa bilowday baaritaano dheeriyo oo lagu sameynayo qof kasta oo looga shakiyo cudurkan iyo tallaabooyin laga qaadayo dadka wararka beenta ee ku saabsan cudurka coronavirus ku daabaca baraha bulshadu ay ku xiriirto. sidoo kale dowladda Kenya ayaa horay u mamnuucday shirarka lagu qabanayo gudaha wadanka waxaana la xiray dhammaan goobaha waxbarashada ayadoo goobaha la isugu imaado ee dadweynaha sida masaajida, hoteelada iyo kaniisadaha lagu amray inay muujiyaan taxadar dheeriya. masaajidka Jaamiya Mosque oo ah masaajidka ugu weyn ee dalka Kenya ee Magalad Nairobi ayaa shaaciyay tallaabooyin uu uga hortagayo faafidda cudurka corona kuwaas oo dhaqan galaya maanta oo Talaada. golaha sare ee masaajidka ayaa war qoraal oo ay soo saareen ku sheegay in waqti kooban loo ogolaanayo dadku inay ku cibaadaystaan isla markaana la yareyn doono waqtiga salaada Jimcaha. guddiga ayaa shaaca ka qaaday in masjidka la furi doono 15 daqiiqo ka hor xilliga salaad kasta waxa uu sii furnaan doonaa 15 daqiiqo salaada kadib. dadkuna waxa ay ka soo gali doonaan 3 albaab oo kaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay golaha sare ee masjidka. sidoo kale maalinta Jimcaha ayaa waxaa masjidka la furi doonaa 6 saac iyo qadar 30 daqiiqo asagoo sii furnaan doona 25 daqiiqo. golaha sare ee masjidka Jaamiya ayaa muslimiinta ku tukada masaajidka waxa ay ka codsadeen in dibadda ay ku soo weysa qaataan maadaama la xiri doono dhammaan goobaha weysada iyo musqulaha ayadoo dadka waaweyn iyo caruurtana laga dalbaday in guryaha ay joogaan. masaajid dhowr oo ku yaala magaalada Nairobi iyo dalalka Islaamka ayaa qaaday tallaabo tan la mid ah si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. maadaama cudurkan lagu kala qaado taabashada iyo u dhawaanshaha bukaanada qaba ayaa waxa laga cabsi qabaa in goobaha ay dadku isugu tagaan sida masaajidka ay sahli karto in cudurkan uu faafo. dhanka kale ismaamulka Mandera ayaa qaaday tallaabooyin dhowr oo looga hortagayo sidii cudurkaasi uu soo gaari lahayn ismaamulkaasi waxaana la mamnuucay qaadkii laga keeni jiray ismaamulka Meru ayadoo dowladda Kenya bangiga adduunka uu ugu deeqay 50 milyan oo loogu talagalay in lagula dagaalamo cudurka coronavirus. sida Abdi Tahliil, Universal TV, Nairobi.